qofka goormuu ogaan karaa inuu yahay qof saalix ah ama gabadhu goormay ogaan kartaa inay tahay gabar markaas saalixad ah arintan walaalayaal qofka inuu xaaladiisii u ogaado runtii waa muhiim yani mata ya'lamu al-mar'u annahu saalix qofka goormuu ogaanaya inuu qof saalix yahay sa'ala rajulun ahad al-ulama ninba wuxuu su'aalay culimada mid kamid ah su'aal buu weydiiyay markaasuu wuxuu yiri hal ana min as-saalihiin anigu ma kamid ahay dadka saalixiinta wanaagsan sheekhi ninki wuxuu ku yiri in kunta tad'u li walidayka hadaa tahay ruux labadiisii waalid u duceeya fa anta minhum saalixiinta kamid tahay waxaana u daliil buu yiri tusinaya qowluhu sallallahu alayhi wasallam aw waladin salih yad'u lahu yani ibn aadam ka amalkiisi waa go'aya illa saddex arin markii laga soo reebo waxa ku jirtay nabiga inuu yiri alayhi salatu wasalaam aw waladin salih yad'u lahu walad marka u duceynayo saalixa marka waladka saalixa waa mid mar walba u duceeya labadiisii waalid sheekhu wuxuu yiri wa in kunta tansa walidayka hadaa taa ruux labadiisii waalid ilaaba oo aan ka warqabin falasta minhum saalixiinta kama mitihid dadka saalixiinta wanaagsan kama mitihid biqadri nisyaanika lahum hadba inta aad marka waalidiintaadii aad ilowday idan marka walaalayaal waalidiinta illa ilaaba ma aha waa in laga warqabaa waa in loo duceeyaa labadaadi waalid haddii ay nool yihiin haddii ay dhinteen intaba waxa laga rabaa inaad u duceydo oo aad ka warqabto sidaas weeyaan sida sharciga iyo diintaniga marka ay boorisay waana iga nusxi qof waliba waxaan u dardaarmayaa in labadiisii waalid uu u duceeyo labadaadi waalid ha noqdeen kuwa nool ama kuwa dhintay hadday dhinteen way ku sii badan yihiin baahi weyn bay ku qabaan marka taa waa iga dardaaran waa iga nusxi weeyaan wallahu a'lam